صفية تصمي عبد عجون weerarka iyo weerar celiska Cabdi Cajuun iyo Safiya Tusmo oo ahaa inan caashaq soo dhex maray ayaa meel xun maraya. Safiya Tusmo iyo arooskeedii ka qabsoomay magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa noqday mid rikoor jabisa. Heesaha jacaylka ah ayaa la isugu jawaabayaa. كرّوج أو هذا صار. هدي كوكوديان كرنا وياعو ميدان كرني الحرمة ويوي كويكان هدي اسكو كرصدن ابتعد إلي كذن فضيح غانت ليبان عبد عجون أيا إسقنا كبل وين يا مقالة هرقيسة عاصمة الصوماليلاند waxana uu soo qaadayaa heeso jawaab ah oo dhiig raacaya waxana ugu dambeysay heestii ay soo wada qaadeen isaga iyo fanaanada caanka ah ee Nimca Degan oo ka turjumaysay gabadh si kadis ah ku jeclaatay wiil cunto u keenay oo dabadeedna la isu jawaabay kulkuma ha ku doorte adoonto khaylo iska kay dabarorin digni leeyis maqashiyo dalcadba ka horeysay digni leeyis maqashiyo dalcadba ka horeysay hablaha reer Somaliland oo uga kicitimay arooska Safiya Tusmo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa hees xaal marin ah arooskeedii ka qaaday. صفية وقاري دمر نشام براو أنشابين كنكيدي يدا أمودن كراديو وهالتو سمانتو كريسو تايه hase ahaatee arooska ayay ceebo badani dul hoganayaan dharka ay soo gashadeen inanka iyo inanta iscalmaday ee ay ku aqal gelayeen xagee baa laga keenay mahidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay soo jireenka u leedahay ayuu ahaa mise wax meel kale ka yimid inkasta oo uu ahaa aroos la isku arkay oo rikoor jabisa hase ahaatee dharka ayaa meesha dheeraad ku ahaa waxana ay sheegayaan xeeldheerayaasha diinta inuu ka soo horjeedo diinta islaamka in dharkaasi lagu lebisto maadaama oo ay leeyihiin dad aan islaam ahayn waxana arooska ka balweynayay oo hor ciyaarayay caruuska iyo caruusada dhalinyaro haysata dhaqanka diinta Kiristaanka oo ku lebisan dharkii kiniisadda ee wadanka Itoobiya nin wax badan ka yaqaan dhaqanka wadanka Itoobiya oo lagu magacaabo Idle ayaa barta TikTok arintaasi kaga faalooday waxana uu yiri dadkeena marka wax loo sheego way ku soo caynayaan ama qabiil bay kugu riixayaan halkan waxa inooga muuqato laba sabir waa wiil iyo gabar lagu sheegay in ay yihiin aroos waa caruus waxay soo xideen dhar ay ku muujinayaan in ay yihiin dad aroos oo farxadooda ku muujinayaan ma sha Allah wax fiican laakiin su'aashu waxay tahay dharkan ay xiran yihiin ee uu talagaleen in ay arooskooda ku muujiyaan asalkiisa xagee buu ka yimid dharkan yaa iskala yaa lagu yaqaan yaa xirto haddaba si aad u fahamtid aan ku tuso dharkani cid xirata dharkani waxaa laga xirtaa wadanka Ethiopia waxaana xirto dadka aaminsan diinta loo yaqaan Orthodox oo kaniisadahooda ayaa laga xirtaa ninka iyo naagta is aroosayo ee ku xiran aaminsan diintaasi Orthodox-ka ama kaniisadahaasi ayaa dharkan xidho maalinka arooskooda halkan gabar baa idinka muuqata iyo wiilkan waa aroos baadarigi isku nikaaxayna waka gabadha mar rabo in aad in sulaabteeda qaawan marka dharkan asalkiisa wuxuu ka yimid qolyahaas diinta adag ee diimaha diinta ugu xun bay haystaan waa Orthodox gaalada qolada ugu xaq dirsan weey marka rasuulka kaleey salaatu wasalaam waa inooga digay inaan qoliyo waxa weeyaan nasaaro dhaqankooda inaan shabahno qofkii qoom kale shabaha ayuu ka mid yahay marka waa sunno in nasaarada iyo yuhuudda la khilaafo dhaqamadooda caadadooda
reer magaalnimo iyo qurux ma aha dad masiixiyiin ah oo waxa weeyaan gaalo ah waxay ayagu u yaqaaniin diin waxay u aaminsan yihiin iyo caado inaad adigu qurux u aragtid ma aha haddaba si kalaan haddana idin tuso meel kaleba ha u raadin arrinkani waxaad ku ogaani kartaa inay sax tahay bal muuqaalkaa eeg halkaas ninka shaatiga bluuga xiran suudka bluuga xiran maxaa ka dambeeyo waa calaamadii orthodoxki calaamadooda wataa halkaa gadaal ka muuqato waa dhaqankii kaniisadaha Ethiopia diinta qolyaha aaminsan diinta orthodoxka dhaqankoodii weeye waxaa halkaas idinkaga muuqda marka walaalayaal waxyaalaha aad samaynaysaan ka fiirsada waan ogahay caay waxaan loo joogin baa halkan kusoo qori doontaa laakiin anigu waxba igama gelin anigu xaqiiqada markasta waan sheegayaa fadlan ka digtoonaada dharka aad soo xiranaysaan iyo waxyaalaha aad soo muujinaysaan laga yaabo waxyaalaha qaar inay tahay calaamado diimo kale ay leeyihiin inay tahay arrimaha laga digtoonaado assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh aroosku waa wacnaa hase ahaatee waxa uu ku sii wacnaan lahaa in loo isticmaalo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo aan wax ka wanaagsani jirin waana qodobka ay ku simbireereen caruuska iyo caruusada ku aqal galay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida